مدن رئيس الوزراء كحجين سودو مر لبادي مر سدحات وحكو سودو وينينا ميكروفونك هذه هذا وما سنتا مهتنتهين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خير بيضا وشناي وقوة الرئيو يغير دولة قبلات كونفور قلبات مدحوين عبد العزيز لفتا قرين صاحب كي وأنه قلها وسيرة اسكالات ترسانين تضوى بلوت كهر xubno saaxiibo golaha ka wada shaqeeya ahayn xubnaha golaha wasiirada dawladda federaalka iyo wafdigii la socday gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo wasiirada danjireyaasha dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo wasiirka gaashaandhigga hore fiqi dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn madaxweyne iyo reer baydhabo iyo reer koonfur galbeedba aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta iyo sida sharafta iyo qiimaha leh ee aniga iyo wafdigeygaba u soo dhaweyseen waxay tusaysaa maanta magaaladana waa marnay gelinkii dambe aniga iyo wafdiga wada soconay maareeye iyo wasiiru dowlaha Cabdilaahi Xaamid iyo wafdigiiba iyo wasiir ku-xigeenka gargaarka waxaanu indhahayay ku soo aragnay nabad jacaylka iyo dawlad jacaylka reer baydhabo iyo sida ay reer baydhabo ugu bahoryoobeen una jecel yihiin dawladooda iyo dawladda federaalka Soomaaliya taariikh dheer bay soo martay suugaantii iyo xigmadii iyo heesihii halkan ay kooxda ka soo jeedisay iyo madaxweynaha khudbadiisiiba waa ay ku jirtay taariikhda aan soo marnay xaaladda aan soo marnay iyo maanta halka aan joogno aan ku sugannahay Soomaaliya Soomaalinimo iyo wadaninimo ayaa qof walba deeqda cadaalad baa deeqda nabad baa deeqda federaalka waa run waa qaadanay ugu horreyn waxaan rabaa in aan idiin soo gudbiyo reer baydhabo salaan diiran oo aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iga gudooma waan nahay dawlad federaal waa run waan qaadanay waa run 60kii siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii reer baydhabo inay nidaamka federaalka ay hogaaminayeen kuna doodayeen in la qaato ku dhawaad 40-50 sano kadib waxaynu maanta ku sugannahay nidaamka federaalka taa macnaheedu waxay tahay federaalku waa dawlad xoog badan oo isku duuban oo dawladda maamul goboleedada ee xubnaha ka dawladda federaalkuna ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin waajibaad iyo xilal dawladda dhexena ay leedahay xuquuq iyo waajibaad iyo xilal ay gudanayso xaq loogu leeyahay taa waxaynu ku sii balbalaarin doonaa lagana naaqishi doonaa dastuurka federaalka oo hadda dib u habeyn xoogan iyo dib u eegisi ku socoto abuurina doona sidee ugu fiican oo loo wada shaqeeyaa maamuladii waa dhisnay waa inoo dhisan yihiin in xuquuqda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee mid walba saaran lagu shaqeeyo muwaadinka Soomaaliyeedna ahmiyadda koowaad uu leeyahay oo qofka loo shaqeynayo uu yahay xilka ugu weyn inay naga saaran yahay weeyaan federaalku macnaheedu waa adeega ama serviceku inuu hoos u dhaadhaco oo halkii dawladda dhexe meel kaliya uun ama caasimaduna wal hore ku urursanaan jirtay la daadajiyo adeegii ilaa degmada ilaa tuulada ilaa qoyska ugu hooseeya ay heli karaan adeegii loo baahnaa xaqoodii heli karaan xuquuqdoodii heli karaan taas bay ka dhigan tahay dunida kaleba haddaynu eegno nidaamka federaalka ujeedada laga leeyahay ee loo qaatay laakiin ma aha macnaheedu inaynu nahay konfederaal inaynu nahay dawlado fragmented ah oo yaryar oo mid waliba gooni u taagan yahay anagu waxaan aaminsanahay dal qani ah baynu ku dhaqanahay Soomaaliya haddaan nahay min raas Kamboni ilaa Lughaya ama Saylac haddaad Soomaaliya eegto
khayraadka ku duugan ee dhinac walba ah dal intaasoo dhan leh waa yaryahay adduunka ama maba jiraba saddexdan gobol oo kaliya haddaad u timaadid maanta qadadii iyo cashadii aynu yeelannay waxa aynu cunnay waxa ahaayeen wax dalka gudihiisa uun ka soo baxay hilibkii oo nooc walba geelii adhigii digaaggii kalluunkii caanihii geela liintii aynu isbarmuutadaynu cabnay khudaartii hadday cagaar tahay soortii marka waddan local wax soo saarkiisii gudaha uun ku nool wax uu uga baahan yahay dal kale inaynu maanta haddana ka shirno gargaar iyo gurmad bani aadminimo waxa ay tajribo ku tahay caqligeenna oo ay imtixaamaysaa maxaa haddaba lagu gaari karaa inaynu gacmaheenna iyo saxaabadaada lagaga dhargaaye isku filnaanno waa kow in aynu xoojinno dowladnimada ayidnana waxaana muuqata run ahaantii Jubbaland iyo Kismaayo waxaanu u tagnay bambixii golaha wasiirada mar dambe aniga gobolka Gado ayaan tagay ra'iisul wasaaraha waa kii tagay madaxweynaha waa kii tagay dowladda dhexe inta waa u socotaa sidoo kale Puntland galmudug oo hadda ra'iisul wasaareheenu degmo iyo tuulo u maray kuna maqan shaqo wanaagsan oo fiican na uu ka wado madaxweynuhu tagay isu soo maray ilaa Boosaaso ilaa iyo galguduud dhammaan isu soo wada maray waxa arkaysaan koonfur galbeed oo yimid madaxweynuhu ra'iisul wasaaruhu yimid shirkii aynu ku qabsanay kal hore madaxda qaranka intuba waxay tusaysaa haddaa u fiirsateen sida shacweynaha Soomaaliyeed ugu hiloobay dowladnimada dowlad jacaylka inay dowlad jecel yihiin in laga daalay colaadii waxay ku yeesayeen fanaaniintu colaad baa ina kala geysay waxa ina dhiqi karta uun dowladnimo cadaalad iyo sinaan iyo dowladnimo iyo sharciga aynu dhiganay oo aan ku dhaqanno iyo inaynu dalkeena aamino dowladdeena aamino oo waqti siino mas'uulka waxa la doortay 4 sano 4 sano lala shaqeeyo dowlad dhexe iyo dowlad goboleedba loo fahmo dowlad goboleedku awoodaha leedahay intay gaarsiisan tahay inay u baahan tahay dowladda dhexena gobolkii u baahan yahay oo aanay jirahaynin haddaanay dowlad goboleedyada jirin waa qof iyo jirkiisii qaybihiisii kala duwanaa waa ugu mahad celinayaa madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen fahamka culus ee wadaninimadu ku dheehan tahay ee uu ka qabo aragtida nidaamka federaalka iyo xiriirka ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dhawaaqiinii iyo fariimihiinii waa dhageysanay waanuna qaadi doonaa mas'uuliyiinta sarena run ahaantii waa kala fadhiisanaynaa in wax kasta oo lala qaban karo lalana qabto dowlad goboleedka koonfur galbeed dhinac walba wax soo saarka iyo tacabka iyo dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee kale ee horumarin karaya dalka in wax badan laga qabto lana wada shaqeeyo taas baan ku gaari karaynaa horumar jiritaanna ku sugan karaynaa dalkeenu kaalintii uu adduunka kaga jiray maanta Soomaaliya hilow baa ka muuqda waa la isu hiloobayaa dowladnimada loo hiloobayaa dadka Soomaaliyeed waa bislaadeen waxayna u bislaadeen in jiritaankoodu ku xidhan yahay in dowlad dalka oo dhan maashayso dalka oo dhan ku filan dalka oo dhan uu ku hiloobo oo ku kalsoonaado aynu helno taa wadadeedii cagtaynu saarnay aynu dastuurkeenna ka shaqeyno aynu ka shaqeyno dowladnimadeena walaaltinimadeena ka shaqeyno Soomaalinimadeena ka shaqeyno taas baynu ku ahaan karinaa qaranka jira waa ogtihiin maanta dhalinyaradeennu waxay ku dhamaadeen badaha tahriib bay ku dhamaadeen xaaladaha ay kaga sugan yihiin Liibiya iyo meelaha kale oo loo tahriibo waa ka war haysaan intee baynu ku sii jiri karnaa dhulka inta leeg oo inagu filan populationka Soomaaliyeedna aanu badnayn barnaantii marka loo eego dhulka aynu haysano dalal yar oo kooban ayaa populationka ku sugan ay ku 3 iyo 4 laabmayaan shacabweynaha Soomaalidu inta uu leeyahay waxaynu taaganahay xilligii 30 sanadood oo dib iyo qax iyo colaad ah kadib aynu maskaxda toojin lahayn aynu ka fikir lahayn maxaa inaga qaldan haddaan Soomaali nahay sidee baan jiritaankeenii mar labaad u sugnaa waa ku raacsanay madaxweynaha in xasilooni siyaasadeed la gaaraa inay tahay takaliye ee isku xidhi karta in uu qarankii dib isu taago waana sababta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu mar walba ay xoog u saaraan in xiriir dhow uu ka dhaxeeyo oo walaaltinimo ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada taasina meel fiican run ahaantii ay marayso
horena ay u sii socon doonto waxay nagu soo aadan hadda 2 sanadood iyo 6 bilood oo xukuumadda nabad iyo nolol dawladda federaalka ay jirtay sanad iyo 5 bilood wax ku aadan in aynu u jihaysanahay una soconno in la gaaro doorasho xor ah oo xalaal ah waxa ogtihiin in xukuumadda federaalka Soomaaliya dhawaan ay ansixisay sharciga doorashooyinka oo ah kii ugu fiicnaa ee uu dal lahaan lahaa kii ugu fiicnaa ee wadan federaal ah dib u habeyn dastuur ku waajahan doonaya 50 sanadood kadib 69 ay noogu dambeysay doorasho in muwaadinka Soomaaliyeed si xor ah oo xalaal ah oo nabad ah lagu gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ah oo shacabweynaha Soomaaliyeed madaxweynahooda markii ugu horeysay ay si toos ah u soo doortaan taas ayaanu u jeednaa sharciga doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ayuu hadda hor yaala guddiga uu gudoomiyaha golaha shacabka u saaray waa soo darsi doonaan 2 bilood kadib golaha shacabka ka doodi doona waxaanu dhamaanteen rajaynaynaa inaynu u diyaar garowno 2020 maalin kaliyana aan la kordhinin loo soo ambabaxo in shacabweynaha Soomaaliyeed u dareeraan codkooda inay ku doortaan hogaamiyahooda gacantooda inay ku doortaan xildhibaankii matali lahaa oo cod shacabweyne cod dadweyne ku soo baxay u hoggaansan oo accountable ah shacabweynihii soo doortay uu kula xisaabtamayaan maxaad u qabatay shuruuc horumarineed oo dalka iyo gobolka ka turjumaysa ma meel marisay ay u yeedhi karaan la xisaabtami karaan warbixin ku soo celin karo waxa uu qabtay uga warrami karo golaha shacabka iyo shacabweynaha Soomaaliyeedna madaxweynahooda la xisaabtamayaan xukuumadoodana la xisaabtamayaan haddii maanta aynu ka hadlayno doorasho toos ah hal qof iyo hal cod ah taa macnaheedu waxay tahay 2020 oo ah 60 guurada maalmihii xorriyadda Soomaaliyeed waxaynu u dabaaldegi doonaa laba kaclayntii iyo fufkii qaranka Soomaaliyeed fufkii xorriyaddii 60kii ee hilowga iyo suugaanta iyo dal jacaylka iyo wadaniyadda ku salaysnayd taas baa dhamaanteen ballan inoo ah waxaynu arki doonaa insha Allah dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada shacabweynaha Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo gacmaha is wada haysta loo gudbay dimuqraadiyaddii aynu u ahayn hormuudka Afrika 60meeyadii Soomaaliya waxay ahayd meeshii ugu horeysay ee si xor ah oo nabad ah xilka loo kala wareejiyo haddana taas way aragnimo inagu filan ilaa 2000 ayaa markastoo waqtigeedii ay gaadho madaxweynayaashu si nabad ah xilka loola kala wareegaa